gudidii dhexdhexaadka ahaa ee salaadiinta iyo madal dhaqameedka ka soo jeeday gobolada Somaliland oo ku sugan degmada Ceelaf Weyn ayaa kulan saxaafadeed ay maanta ku qabteen gudahaasi degmada Ceelaf Weyn waxay kaga hadleen inay gali doonaan wajigii ugu dambeeyay ee daminta shaqaqooyinkii ka dhacay deegaanadaasi oo ah sidii magihii lagu kala qaadi lahaa beelahaasi oo maanta ay ku beegan tahay in loo kala qaado ayaa ergooyinku waxay ka soo saareen kulan saxaafadeed ay ku sheegayaan in hawlahaasi si degdeg loo gali doono sidoo kale salaadiinta iyo madax dhaqameedkan waxay ka hadleen shaqaqadii ka dhacday u dambeysay deegaanka Dararweyne ee gobolkaasi Sanaaga Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawel Sayid Aw Jaamac Warsame iyo waliba Cabdulaahi Cabdi Koosar Sultan Ibrahim oo ka hadlay arintaasi dambeysay culimadii duqeyda balahayd gudidii halkan Ceelaf Weyn joogtay waxaan ku soo noqonay anagoo dhowr sulbaana waxaan u soo noqonay runtii arintii iyada ahayd halkan ballantu ka taalay ee 2 bilood gudahood jifadii lagu keenayd baan u soo noqonay qalaan shirka ugu dambeeyna maanta aan galay waxa weeye waxaanu leenahay dardar hal la geliyo oo cid walba wixii ku munaasib wixii laga doonayay iyo wixii xaq looga lahaa soo fuliso ha soo dhameystirto cidii ma qarina runtii ha soo gasho waxa weeye si hawlaheeni loo guda galo hawshaasi ay horeyso ka dambeysay xiritaanka nabadda iyo ahdigii iyo qoraalka iyo cadaankii ka dambeysay say hurgashaa dalena waxa weeye hal dhameystiraan leeyahay waxa duqay badan baa iga dambaysa waxa weeye nin la sugayo sugi waxa weeye waxaan u taaganahay arinta ayada haddii aan duqayda halkan maanta fadhida iyo haddana culimada soo socota iyo haddii xirayaasha soo socda leeyahayba in aynu soo gabagabayno kana ducaysano in loo dhameystiri lahaa hawlihii nabadeynta ee aanu hore uga galnay Ceelaf Weyn ee guusha iyo wanaagga ku dhamaaday dhameystirkeedii intii harsaneyd ee ballanku ahaa ayaan u nimid dadweynaha degmada Ceelaf Weyn oo aanu leenahay nabadii aad sugteen oo halkeedii taagan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inta hadhayna waxaan jecelahay in laga shaqeeyo ergada haddii ay culimada tahay dhaqanka iyo xukuumaddaba sidii aynu u soo afjari lahayn ee aan u dhameystiri lahayn nabadii aan ku xidhnay halkan Ceelaf Weyn dib u yar dhacday oo baryahan la lahaa Ceelaf Weyn arrinkeedii ballankii u dhaafo halkiiba lagama tegin sidka Somaliland inay si dhaqso badan oo aan ka dambeyn beri iyo saa dambe noogu yimaadaan taabaq baan uga jeedinaynaa degdega waxa weeyaan hormuud iyo horseed baan udinahayn wixii aan qabanayna waxa weeyaan waa wixii aynu isku ogeyn dadkii nabadoontoodii in la sii xiro in loo tago inaan dadkii u qaadan dad laga tagay meeday arintaas ka dambeysay oo laga hadlay arintaas waa tii hore gabadha laga yeelay la dilay si fiican dhinacaas aad baan ugu mahadnaqaynaa uguna hambalyeynaa waxaan ugu hambalyeynaa haddana haddii wax dhaceen sida ay soo xakameeyeen oo aanay haddeer wax dhaqaaqa u samayn cidda kalena malihin way ka tashadeen waxa dhacay waa wax dad magaratu samaysay oo aan yaani loo qaadan karo inaan wax laga tashaday ahayn ha yeeshee waa wax iyaga maanta ku xun oo wada saameeyay oo looga fadhiyo sidii ay uga falgeli lahaayeen wax qabashadeeda marka reerin laga dilo kuwa kalena markiiba way ka jawaaban baa lagu eedan jiray wax wanaagsan baanu aragnay iyadoo la sugayay baanu aragnay iyadoo muxuu ahaayay reerkii waxa laga dilaa aanu dhaqaaqayn ilaa muxuu ahaayay indimaalkeedii baxnadeeyaanu aragnay wax wanaagsan baa nabadii ay xidhay oo ay nabadii way qaateen si wanaagsan bay u shaqeynayaan taas waa qodob dhacdadii ka dambeysay nabadii halka ka dhacday ee inanta dilkeedii waa ka wada warhaysaa sida markiiba muxuu ahaayay looga hawlgalay sida muxuu ahaayay loo dhameystiray tii ka dambeysay ninkii dhintay hadda waa lagu hawl jiraa aad iyo aad baa beeshii ama reerkii u shaqeynayaan waanu aragnay waanu shiray si wacan bay u shaqeynayaan taasna waa qodobka labaad waxa iyadoo intaas salaadiintu ay sheegan ay ku dhan tahay cid kastoo ay khusayso xaajada Ceelaf Weyn ama dan kale hadday xukuumad tahay hadday odayaal tahay hadday madax dhaqameed tahay hadday muxuu ahaayay tahay xirayaashii labada geesood hadday beelihii muxuu ahaa labadii reer odayaashooda wixii ka maqan tahay ama madax dhaqameedkooda ama wax garadkooda inay si degdeg u soo galaan Ceelaf Weyn Axmed Maxamed Cilmi on Cable TV Ceelaf Weyn